كل isugu yimaadeen haween ku dhaqan gobolka Hiiraan ayaa waxay ku baaqeen in la qabto doorashada ururka haweenka ee gobolkaasi Ismaan Aadan Caras ayaa markale warbixinta Beledweyne ka soo diray kulankan ay isugu yimaadeen ka tirsan haweenka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin doorashada iminka soconaysa gobolka Hiiraan balse doorashada ururka haweenka gobolka Hiiraan ay dhici doonto markii ay soo gabagabowdo tan maamulka gobolka Hiiraan waa kuwan qaar ka tirsan haweenka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee kulankaasi ku yeeshay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan oo ay gabdhaha beesha xawaal uga tashanayeen aayahooda maadaama in muddo la kala maqnaay wadanka xalaada jira awgiis ilaahay hadduu sukaayo keenay alxamdulillaah shan ilaa daraad waa isku imaanayna waxaan ku heshiinay ilaa laga gaarayo doorasho in 12 xubnood aan iska soo qabanay oo ka tirsan ku dhan yihiin beelaha beesha xawaale gabdhahooda beel maqan way jirtaa laakiin wax problem mana walaalahan waa kama maarno waana doonaynaa waana doori doonaa wax weyn nagu dhex jiraan laakiin 12 beelood oo ay xawaale ka koobnaayeen 12 kamid way joogtaa insha Allah ilaahay abshirtaana waafajiyo 12 kaasna waxaan u xulnay doorashada jirta hadda oo mid taagan oo lagu xulaa kowsalada ilaa maamul heer gobol heer degmo inay gabdhuhu gobol u noqdaan garabkooda taagnaadaan ragga maadaama islaayahay sanadkan waa sanadkii xaq xawaalo oo banaanka yimid maadaama doorasho ay noqotay arintii wax badan laakiin la soo magacaabi jiray dad 6 bilood oo ku meel gaaray iyo waxyaabo la mid ah waxaan ilaahay ka rajeynayaa in ay ku dhamaato sida ilaahay uu hadda waafajiyo uga dhawaajiyo oo ah in doorasho la qabto in muddo ayna is arkin ayaa waxa loogu talagalay shirkan in lagu soo dhaweeyo in beesha xawaadle ay isgacan qabsadaan haweenkooda ay noqdaan kuwa hal mid ah waa xawaadle mid kale aan wax dhibaato ay jirin waxay ka kooban yihiin 12 beesha xawaadle ay ka kooban tahay ay ka kooban yihiin haweenkan wax maqan waa jiraan laakiin waa soo dhameystirmi doonaan laakiin xoogooda inta badan way joogtaa haduu la yiraahdo waxaan doonaynaa oo u sameysana shirkan in aan saadaasha socoto doorashooyinka socdo nabadeenta socoto si aan uga qayb qaadano oo qayb libaax aan uga qaadano annaga hadaan nahay haweenka beesha xawaadle noqono kuwa hago dadka haysta ama dhibaatooyinka carqaladaha ay dhex yaalaan Ismaan Aadan Caras TV-ga caalamiga Somali Channel Beledweyne isugu yimaadeen haween ku dhaqan gobolka Hiiraan ayaa waxay ku baaqeen in la qabto doorashada ururka haweenka ee gobolkaasi Ismaan Aadan Caras ayaa markale warbixinta Beledweyne ka soo diray kulankan ay isugu yimaadeen ka tirsan haweenka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin doorashada iminka soconaysa gobolka Hiiraan balse doorashada ururka haweenka gobolka Hiiraan ay dhici doonto markii ay soo gabagabowdo tan maamulka gobolka Hiiraan waa kuwan qaar ka tirsan haweenka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee kulankaasi ku yeeshay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan oo ay gabdhaha beesha xawaal uga tashanayeen aayahooda maadaama in muddo la kala maqnaay wadanka xalaada jira awgiis ilaahay hadduu sukaayo keenay alxamdulillaah shan ilaa daraad waa isku imaanayna waxaan ku heshiinay ilaa laga gaarayo doorasho in 12 xubnood aan iska soo qabanay oo ka tirsan ku dhan yihiin beelaha beesha xawaale gabdhahooda beel maqan way